kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka maanta xog waran show kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah dagaal qaraar oo sababay dhimasho dhaawac una dhaxeeyay maleeshiya ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ka qarxay galbeedka magaalada Gaalkacyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala tirsan Galmudug iyo Puntland oo ku baxay joojinta dagaalka ka socda deegaanka Taaruga ee gobolka Mudug ciidamada Kenya oo 24 saac la soo dhaafay dad iyo dunyo ku dilay duqeymo culus ay ka fuliyeen gobolka Gado amirkii al-shabaab ee Galmudug oo gacanta lagu soo dhigay ciidamada Kenya oo saldhig cusub ku wareejiyay kuwa Jubaland iyo ujeedka ka dambeeyay arintaasi beesha caalamka oo madaxweynaha Soomaaliya ku cadaadinaysa inuu la heshiiyo Axmed Madoobe iyo weerar ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay dalka Nigeria intaasi waxa ahaayeen daawadayaal qodobada wararka kuwada ugu waaweyn ee xog waran show idin hayo fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe sar like share comment saaxiibadan la wadaag maasiriin dhamaantiinba waa hagaagan ku bilowno qodobka ugu horeeya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal beeleed ka qarxay duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wararka ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus isla markaana u dhaxeeyay maleeshiyaad kala taabacsan maamulka Puntland iyo Galmudug waxaana xoogiisa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Taaruga oo ka tirsan gobolka Mudug ila xoggaal oo ku sugan deegaanka Taaruga oo la hadlay xog waran show ayaa sheegay in dagaalku ahaa mid culus la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ay yimid kadib markii ay fashilmeen dadaalo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac oo hore ugu dagaalamay halkaasi intii la xaqiijiyay waxa dagaalka ku geeriyooday ugu yaraan 2 qof halka tireenta ka badan ay ku dhaawacmeen dhanka kalena xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa bilaabay inay ku baxaan joojinta colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Taaruga oo ka tirsan gobolka Mudug xaalad kacsanaana ayaa laga soo warinayaa deegaankaasi iyadoo wali labada maleeshi beeleed ay isku horfadhiyaan warka xog waran show ayaa daawanaysaan daawadayaal ciidamada Kenya ee qaybta ka kuwa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa la soo warinayay in saldhig cusub oo laga hirgeliyay magaalada Dooble ay ku wareejiyeen ciidamada maamulka Jubaland saldhigan oo mid ballaaran ayaa waxa qalabay isla markaana maalgeliyay dawladda Denmark iyadoo muddooyinkii dambe uu fariisin u ahaa ciidanka Kenya arintan ayaa waxa lagu sheegay in ay qayb ka tahay qorshaha ciidamada AMISOM guud ahaan amniga dalka lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliyeed Paul Nachuma oo madax uga taliska AMISOM sector 2 ayaa ku wareejiyay saldhiga waxaana sheegay in Dooble oo ka tirsan Jubbada Hoose ay noqotay magaalo weyn isla markaana loogu baahan yahay in la xoojiyo nabadgelyada deegaankaasi taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaan halkaas laga saari doono maleeshiyada al-shabaab markana wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan ku saaraya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu heshiis dhaba la gaaro madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dajraha qaramada Midoobe ee Soomaaliya oo fadhiya James Swan ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berdinga safiirka wadamada UK Norway Sweden Germany safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya oo iyo wakiilada iyo madaxda ururada daneeya arrimaha Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo la hadlay ayaa dhamaantood cod isku mid ah ugu sheegay inuu xal ka keeno arinta Jubaland si looga baxo dhibaatooyinka faafida COVID-19 oo kiisas kala duwan laga helay Jubaland qaar kamid ahna ay u dhinteen haddana dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan iyadoo sidoo kale hanaanka qabsoomida doorashada muhiim tahay in Jubaland laga tashado madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay in dawladdiisa aysan aqoonsaneen doorashadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Kismaayo kaasi oo lagu doortay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxayna ku tilmaamtay mid afduub iyo boob lagu gaaray Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa heshiis la gaaray xubnaha isbedel doonka Jubaland kuwaasi oo ka carooday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu shubtay wuxuuna madaxda dawladda federaalka ugu baaqay inay miiskooda hadalka yimaadaan si loo dhameeyo khilaafka ka dhex taagan Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya
weli waxaad daawanaysaan warka xog waran show markana wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Wargalo ee gobolka Mudug. Howlgalka ahaa mid qorsheysan ayaa waxay ciidamada ku qaadeen guri ku yaala deegaankaasi oo lagu tuhmay xubno ka tirsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab. Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamadu ay la kulmeen iskahorimaad kooban isla markaana lagu dhaawacay hal askari sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in gacanta lagu dhigay nin hubeysna oo ku sugnaa guriga la weeraray oo ku yaala deegaanka Wargalo oo qiyaastii 70 kiiloomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ninka la qabtay ayaa sidoo kale la soo warinaya inuu ahaa bartilmaameedka howlgalka kaas oo isku dayay inuu ka baxsado balse ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen. Howlgalka ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay xoojiyeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka wadaan gobolada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya. markana deegaanada Puntland diyaarado dhawaan ay dawladda Soomaaliya ee Puntland ku wareejisay ayaa waxa ay maanta buufinta anyaxa ay ka bilaabeen deegaanka Godob Jiraan ee gobolka Nugaal. Deegaanka ay buufinta ka bilaabeen ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa dhibaato daran ku hayay anyaxa, waxaana dadka deegaankaasi ay sheegeen in beero badan oo ay ku baaba'een isla markaana cabasho badan ay u gudbiyeen madaxda Puntland. Diyaaradaha buufinta ka bilaabay deegaanada Puntland oo laba ka mid ah kuwa qumaatiga u kacay helicopterka ayaa waxa 15kii bishan ay gaareen magaalada Garowe, waxaana mashruucan lagu buufinaya anyaxa si wada jir ah u maalgelinaya hay'adda FAO iyo USAID, waxaana fulinaysa dawladda federaalka Soomaaliya. Buufinta anyaxa ee deegaanada ka tirsan Puntland ayaa waxay socon doonaan muddo 10 cisho ah, waxaana sidoo kale ay buufin ka sameyn doonaan deegaanada maamul goboleedyada sida Galmudug, Hirshabelle, Jubaland iyo Somaliland. ugu dambeyntiina akhbaaraadka dibadda haddii aan eegnana ugu yaraantii 20 qof oo qaar ka mid ah yihiin shacab halka kuwa kalena yihiin ciidamada Nigeria ayaa lagu dilay dalkaasi sida ay ku waramayaan goobjoogayaal. dableyda weerarka soo qaaday ayaa dagaalamayaasha Boko Haram ee dagaalka ku jira dalalka ku yaala galbeedka Afrika. waxa kale la soo warinayay weerarkaas ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale. ragga weerarka soo qaaday ayaa waxa la sheegay inay gaari ay wateen sida ay tilmaameen ila deegaanka, waxayna bilaabeen in toogasho ay markiiba halkaas ay ka geystaan. dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Borno, magaalada madaxdiisa ee Kajikani, meel dhinaca waqooyi kaga xiga isla markaana 47 kiiloomitir magaaladaasi kaga beegan. madaxda dalka Nigeria ayaa sheegay in saacadaha soo aadan ay gacan bir ah ku qaban doonaan kooxda Boko Haram. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen xog waran show anaga intaas daawadayaal, fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe sar ku soo bir oo nala noqo saaxiib joogto ah. mahadsanidin dhammaantiinba.